Itoobiya inay jiraan hadalka waxaan rabaa inaan hoosta uga xariiqo in aynu maskaxda ku hayno waxa iman kara bari iyo waxa halgankeenu ku dambeyn doono ama ku dambeyn karayo halgankii dheeraa aynu ku soo jiray aaminsannahay inuu sabab u ahaa burburkii ku dhacay dowladdii cadowga ahayd shacabka Itoobiya ugu horseeday in lagu dhiiran karo xukuumaddii nacabka ahayd oo laga adkaan karo waxa weeyaan isbeddelkaas way ku neefsannay nacaw baynu dareennay aynu dareenno fursad bayna siisay waxaan rajaynaynaa fursadda inaan ka faa'iidaysano iyadoo fursaddu sideeda tahay waxyaabaha la fili karaya inay ka yimaadaan waxaa laga yaabaa Itoobiya inay isbeddello ka yimaadaan cusub oo kuwii hadda aynu ku dhex jiray aan ahayn hore sidaynu u maqalnay isbeddelka Itoobiya ka socda weli ma uuna dhammaystirmin wuxuu ku dambayn doonana ciidina ma oga waxaa laga yaabaa shacabkeennu in wax badan oo inaga mido jaaliyadaheennu ay kow ka yihiin inay aaminsan yihiin in la xoroobay ama calaqalla muxuu ahaaye gulcooma la sii yahay oo xorriyaddii lagu sii socdo oo hawsha xooggeedii dhinaca inooga dhammaatay mararka qaarkood la odhanayo dhaqaalo looma baahna innagaaba xaggaa hadda ka sugayna dhaqaalo laakiin waxaan jecelnahay inaan isxusuusinno Itoobiya meesha ay maraysa iyo waxa suurtagalka inay ka yimaadaan Itoobiya innaga oo rajo fiican weli qabna oo rajo go'aynin oo weli dadaal fiican inaan nabad wax ku gaarno doonayna hadafkeennii aynu muddada dheer soo daba soconnay aynu nafta iyo maalka u huray innagii oo rajo fiican ka qabnay inaynu si nabada ku sii wadanno haddana wax kasta filo in loo diyaargarooba fiican isbeddelka Itoobiya ka socda qayb ka mida waxaa weeyaan xukuumadda talada haysaay qorshe cusub ay soo rogtay qorshahaasina waxaa weeyaan in dowladda laga sameeyo ama waddanka laga sameeyo xisbi keli ah oo waddanka ka taliya taa macnaheedu waxaa weeyaan wuxuu ka hor imanayaa nidaamkii dimuqraadiyadda ahayd aynu innaguna jaaniskiisii ka faa'iidaysanay wuxuu ka hor imanayaa nidaamkii ismaamulka ahaa ee sheegashada inaynu degaan gaar u leenahay uu ka hor imanayaa nidaamkii federaaliga ahaa ee waxna la kala lahaa waxna la isku lahaa ayuu ka hor imanayaa hadday suurtagal noqoto oo uu guulaysto isbeddelkaas ama la doonaya hal xisbi lagu samaysta lana ansixiyey oo axsaab hadda sideedii ay ku midowday haddii uu hirgalo waxaa ka iman doona waxaan garan karna maaha waxa aynaan u garan karaynin waxaa laga yaabaa dabada inuu ku hayo oo aada loo filayaa dabada inuu ku hayo in la doonayo in la soo celiyo nidaamkii kaligitaliska ahaa ee dowladda dhexe awoodda badnayd maamulada kililadana la baabi'inayo ama la naaqusayo taa waxa ka dambeeyana waad garan karaysaa waxaa suurtagal ah in loo qaybiyo Itoobiya 4 ama 5 qaybood oo hab maamuleed loo qaybinayo la odhanayo bariga iyo koonfurta iyo waqooyiga iyo dhexda iyo waxa la mid ah taas oo macnaheedu tahay in uusan jiri doonin waxa la yidhaahdo qowmiyad nidaam qowmi ah inuusan jiri doonin baa suurtagal ah taa haddii ay timaado innaguna waxaynu higsanaynay aynu ognahay waxa inoo horseedi karta waynu garanayna sidaa darteed ciddii u malaynaysa inuu halgankii midhiisiida dhow yahay ciddii u malaynaysa inaynu intaynu doorasho gallo oo aynu doorashada ku durdurino maadaama aynu taageero badan leenahay inaynu dowlad noqonayno dhaqaalaha dambe laynooga baahanaynin ama midnimo dambe laynooga baahanaynin ciddii aaminsan